ummadina ma horumarto horumar ummad kama suurtagal aha laba shay oo la helo mooyaane biyo iyo nal inay ka dheregto energy ummadii aan energy haysan horumar kama suurtagal aha waligeen baa inuu soo khudbada soo akhrino sheekayno waxaynu cabnayno laana xageenu ku horumarraa waxaynu shidanaa ama energy aynu isticmaalana waa laanay la gas wala light wala waxba toona wali geedkii baynu gubaynaa shidaynaa horumar iyada daa marka casrul xajari baad nooshay waqtigii dhagaxa waxay yidhaahdaan aadanuhu noloshiisu waxay u tatawurtay tiradu markuu yaraayo koowaad geed buu shidi jiray bay yidhaahdeen uu ku noolaa kadib buu ka soo gudbay steam buu yimi albukhaar markuu maraakiibta iyo waxa kan iyo steamka lagu kaxayn jiray bukhaarka la isticmaali jiray kadib buu ka soo gudbay wuxuu yimi alfaxmi alxajari dhuxushii la soo qodanayay dhagaxa ahayd dhuxul dhagaxdii la soo qodayay oo dhulka hoostiisa laga soo qodayay kadib buu ka soo gudbay dabeetana shidaal buu la soo baxay kadib buu ka soo gudbay dabeetana gaas buu la soo baxay kadib buu ka soo gudbay dabeetana taaqa sinaaciya daaqada la abuuro buu samaystay sida nuclear energy iyo chemical energy waxyaabaha kan kadib buu ka soo gudbay dabeetana wuxuu yimi daaqada aan nuduubku ku dhicin tan cadceedda iyo dabaysha iyo badda karansigeeda iyo laga dhaliyo kuwaasi ma go'aan de cadceeddu markay dhammaato dee dunida dhammaanaysaa idan dunidu waxay leeyihiin mar kasta oo aadanuhu soo bataba ilaahay futuux cilmiyo cusub buu u furayay taasina waxay sababaysay inay noloshoodu kor u socoto tiro badnidu inaanay nolosha dib u yaraynine inay ahaato mar kasta tiro badnidu wax fiicnaysiinaya dunida oo ay nolosha kor u socoto laakiin inagu de weli waxaynu taaganay maxay alcasri nabaati xataa casri alxajari maynan soo gaadhin casrigii nabaadka geedka la shidayey mushkilatu alqadaa waa mushkila taariikhiya waxaana laga yaabaa inay ka mid tahay waxyaabihii dagaallo badan oo dunida ka dhacay dagaallo dhaqaalay ahaayeen ama siraac tabaqiya ixtikaarkan caalamiga ee cunnada lagu samaynayey isticmaalkii dunida gumaystay wax badani ilaahay qur-aanka wuxuu ina leeyahy wa fi الsamaa'i risqukum wamaa tuucaduun ilaahay waa ballan qaaday arsaaqda damaanu risq qur-aanka iyo axaadiistu waxay noo tilmaamayaan min allah in laga ballan qaaday laakiin macnaheedu maaha tawaakul macnaheedu maaha iska fadhfadhista arsaaqdu way imanaysaaye meelay ku qorantay ma jirto aadana la yidhi iska fadhfadhiya arsaaqdaa helaysaane meelay ku qorantay ma jirto ee waxaa layna yidhi man axyaa ardan maytatan fa hiya lah dhul dhintay qofka nooleeya ee wax ka beera wax ka soo saara innaguna intaynu bannaanadii ilaahay oo dhan weegaarannay ayaynu xataa neefkii daaqaya u diidnay waxna kama soo saarno sharciyan maad mulkinin weligaaba dayr ku wareejiyo o dhan anigaas kale waxba dayr naf loo macno samaynayo mashaakilka yaallaa markaa wuxuu yahay waxa uu qur-aanku inoo tilmaamayaa fasahaadinta la fasahaadiyo ama dhirta ama xoolaha ama nolosha ama waxa kani wa min annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati addunya ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أهلا نوح نبي ينوت المامية لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة قفك مسلم كاي وحما بيره قيد متاقو ama zarac midho dhulka kuma rido oo bini aadam ma cuno ama xoolaba ma cunaan ama cidi uun ma cunto buu nebigu leeyahy ilaa iyo sadaqad bay u tahy waxaasi waa dhiirigelin la dhiirigelinayo qofka muslimka ahi inuu wax beero bal waxaa kuugu filan xadiidkii uu nebigu yidhi in qaamat الsaaca wa fii yadi axadikum fasiila haddii qiyaamuhu xaggaa ka soo sanqadho uu dhaco oo gacanta aad ku hayso geed timireed la abqaali karo fain istataaca an laa taquum xataa yagrisaha falyagrisha haddaad awooddo qiyaamaha inaad ka gaadhsiin karto xabaddaas
geedkaa yar inaad beerto beer buu nebigu leeyahy lidalik bay culammadu waxay dhahdaan garsuhaa cibaada geedka beeristiisaa cibaado ah waayo insaanku bay dhahdeen yatacabadu bilcamal shaqaduu ilaahay ku caabudaa ilaahay shaqadu ugu dhowaadaa haddaba ayuha alaxiba darsigani wuxuu ku saabsiisan yahay ishkaaliyadda tan sidee loo xallilayaa dhibtan ma laga bixi karaa ها odayga aqoon-yahanka ee yuhuudiga ee maraykan ee macruufka ah linguistica ah ee la yidhaha nacum chomsky nin aqoon-yahana siyaasaadka reer galbeedkana ragga ka soo horjeeday leftiiska ah ka mid a ayaa wuxuu leeyahy weedh caan oo la yidhaahdo laa yuujad shay ismuhu beled faqiir yuujad faqat nidaamun faashilun fi idaarati mawaarid اlbeled buu yidhi dunida kama jira buu yidhi dhul la yidhaahdo waa dhul faqiira dunida ma jira buu yidhi ee waxaa jira nidaam faashila oo maamula mawaaridda waxa ay bini aadamku hantiday haystaan nidaam faashil oo maamulo unbaa jira buu leeyahy laakiin waddan faqiiri ma jira buu leeyahy macnaheedu waxa weeyaan aadanuhu gaajada farsamo xumidiisaa keentay ee dhulkiisu ma keenin buu leeyahy dunida kuma yaalla buu leeyahy dhul aan dadkiisu aanay wax cuni karin laakiin systemkay u nool yihiin ayaa ah ka dhibta jira anugu caawa kama warramayo qadiyadda tan technically dee kaa culammada ku takhasusta inooga warrami beeraha iyo saa wax loo beerta iyo saa culammada ku takhasusay lakiin waxaan ka warramayaa xalku taqniga ahi wuu dambeeyaa ee waxa ka horeeya nudrada waxa keena oo dadku inay nabadda cunneed waayaan cunno ku filan in bini aadamku waayo waxa keena siyaasadda waddan uu leeyahay iyo thaqaafada ay haystaan intaan loo tegin masalada tiqniyada iyo cilmiga iyo farsamada loo tegin farsamadu bini aadamku waa wuxuu soo heli karo waana wax la baran karo farsamo kastoo dunida taalla waa la baran karaa waana la soo heli karaa cid taqaana ama waddankaaga gudihiisa ka hel ama dabadiisa ka soo waa la heli karaa laakiin mashkiladdu waxay ka jirtaa culture-ka bulshadu ay haysato iyo qaab nololeedka ay rabto inay u noolaato iyo siyaasadda maamuleed ee ku saabsan cunnada waddanka dadku siduu wuxuu cuno u heli lahaa siyaasadooda maamulkooda sare uu leeyahay marka siyaasadda maamulka sare uu leeyahay ka warramayo dad badan waxaa laga yaabaa inay dowladda markaa meesha joogta iyo mucaaradka ka soo horjeedo oo yidhaahda dowladdan wartaa kama warramayo waa iliidkeenna oo dhammi siduu rumaysan yahay ama kuwa hadda jooga ha noqdaan kuwa soo socda ha noqdaan kuwii sii tegaya ka sii baxay ha ahaadaan kuwii inoo soo bilaabay isku kee wada dar maaha kuwa hadda jooga waxaynu emphasize-ka saaraynaa waa iliidkeenna waxaynu ka warramaynaa dadka hoggaanka inoo hayay ilaahay intaynu xorribad qaadanay ilaa 60-kaagii ka soo bilow dadkii hoggaanku u hayay iyo kuwa hadda u soo hanqaltaagaya u soo socda marka waxaan leenahay ummaddeenna hoggaanka qabatee iliidka ahi siyaasadda ay ugu talagaleen inay ummadda tani cunno ku filan ku hesho gaajo kaga baxdo iyo culture-ka dadku rumaysan yahay ayaa ah caqabadda koowaad ee hortaagan inaynu gaajo ka baxno marka mushkiladdu waa mushkilo insaaniya ma aha mushkilad dhulkeenna ku saabsan dhulkeenna maxay odhan jireen nicmaa fadhida nicmaa ceegaagta waa iska ceegaagtaa xaqiiqada waa kaa dhulka ilaahay dadka siiyo o dhan bay ceegaagtaa laakiin waxa qaldani waxa weeyaan dadkan ku kor noolay siday u fakerayaan iyo siday wax u maamulanayaan waxa qaldani waa kaa walidaalik aan tusaale yar koobgan idin siiyo بلوتينada dawladdu soo saarto مثلا waxyaabihii aynu soo dhoofsannay January ilaa June 2019kii oo bulletin dawladdu ay faafisay wixii aynu waddankan soo dejinnay laga bilaabo waa 6 bilood oo qura oo 2019kii ka mid ah waxaan aad ula yaabo waxa ka mid ah waxa ku qoran
digaagaynu soo dhoofsannay chicken meat 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 413 oo kiilo iyo hilib digaaga 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 646 kiilo oo kalluuna 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 5 milyan oo litir oo caana ah waxaa la walaaqaya 6 bilood ayaa waxaynu soo dhoofsannay in ka badan 10,000 oo darsin oo beeda beri waxaan filayaa 1986 meelaha inay ahayd mise 87 January mid bay ahayd ayaan Jabuuti tegey dabeetana waxaan arkay Jabuuti oo naalada waa beedka Yemen iyo Faransiiska laga keeno markaasaan aad u yaabay waddankan dhan beedkii uu cuna lahaa laga keenayo dabadda haddana maalin dambe tareenkii xumaaday Ethiopia ka iman jiray arbacadu tareen xawaashka la yiraahdaa iman jirayoo khudaarta wax lagu karsado dhan waaga aad baan u yaabanaa ma waddan jira ayaa khudaartu cuna iyo beedku cuno dabadda looga doonayaa taanigoo ka yaaban baan halkan toon u baahday toon baan soo iibsaday dukaankii toonta iibinaya waxaan ku idhi toon yarro qurux badan un baan koo 7 kiilo isugu xidhan oo isa saaran maasaan ku idhi waar toontan xagee ka timi toontan markaasuu ku idhi China ma intaasoo 1 kiiloomitir bay noo soo lugaysay xabad tooni waa toon xabad toona oo hargeysa lagu dhex iibinayo oo China laga soo raray oo markab la soo saaro dhowr bilood soo socotay hadda dhowrka bilood way bixi lahayd hadaynu ku ridno dhowrka bilood markabku soo socday way bixi lahayd hadaynu dhulka ku ridno idan aqliga keenaya in xabad toona ama kamsare ama wax la mid ah lagaaga keeno dabad waa wax aad u cajiiba wax aad u cajiiba waxaan eegay إحصائياتك الدولة صار طيب أنا بلغات هذا اللي ينوكينه مركان إحصائيات كان كور رميو كما ورميو وحي السوق مدول وكينه كما ورميو وحي إنه قيمة أنت إنه الدولة دبينو شجنا إنه سكلو صار دافنه أما وحي عشور داف كإنه كوكيني أما وحي حدودها ترى ده بدل لك صاقله وحي كور رميو قات كقولة كصاقله محي قلبات كصاقله halka lagu soo cashuuro 6 bilood ayaa waxaynu cunay 19 milyan oo kiilo waa 6 bilood waa 19 milyan 264 455 kiilo oo qaada 6 months ayaa intaasoo qaada aynu cunay oo Ethiopia laga keenay waxa meesha intaasi waa intay dawladdu cashuurtay laakiin de xuduudda dheer waa taqaaneen ilaa halka ka soo galaqaad meel walba baadiyo dhan buu gobolada baro dhan buu tagaa meel kastuu tagaa waa Soomaali weyna kaba waramayna waa intan yar aynu joogno ayaan ka waramaynaa ayaa uu soo galay 19 milyan oo kiilo 6 bilood la cunay how much ba ku baxay idan مشكلتني ماها مشكلة يردتك سيصور يرما هدان أخريات داتا هل كان كو قرن دولة صارتي واد عجبي لهيد دتك وحا عنية GDP جن واي مسا وحا صار كودن كوبا واي مسا 2002 ألف World Bank ايو دولة وحي سوا صارين وها 1.4 بليون صار كينو بقى كوا هذا وقبض يا واحد هذا 2 بليون لكن مسادير وليبا سورسز آد لو اعتماد كرمها لكن وورلد بانك هي الدولة دو كيسوة صارتي وحش يجي أنت وحش يجي إحصائيات كقاركود عجزة مثلا إحصائيات هوري الدولة دو صارتي ديفيسيت ككوتشرا تجارة إنه وحنا صار في سنة وحنا ندفنه لا بقول يشن مليون أيه لح بلاد جوده ديفيسيت كيه almost وشن نص بليون ديفيسيتين كوتشرنا العقود دو سيت المامية
taa macnaheedu waxa weeyaan iyadoo beer capital wax soo saarkeena iyo dadkeena marka loo qaybiyo waxay ku qiyaasaan qofkiiba $347 baa sanadka dhan kugu soo hagaagaya that means maalintii $1 ma heshid sanadku waa imsa maalmood 365 waddankan aad joogto wax soo saarkiisu maalintii qofku $1 ka yar buu soo saaraa weeyaan marka loo qaybiyo xisaayaadkan aynu hayno waxay dhahaan Somaliland marka loo eego waa waddanka afraad ee dunida ugu dambeeya wax soo saarka 3 baa inaga sii dambeeya iyana baktiyey waa Malawi iyo Democratic Republic of Congo iyo Burundi 3daas ay inaga sii dambeeya marka la eego investmentka level of investmentka approximately waddanka 180aad baynu nahay waddanka 180aad that means 197 waddan baa inaga horeeya runtii إحصائياتكن أما الدولة الصوصار أما World Bank الصوصار أما واحد كان الصوصار واحد آخر كربا معها Somalia تكلنا واسكو هذا النوع اسمه دانتو Somalia يقول هان وحيلين مرها واحد صوص استان وقول agricultural import وسيدية طبعا شهر لاب من 1980 جين توها سكاله هو 1.5 billion أيه annually wax soo siistaa nooca ku saabsan Soomaaliya guud ahaan marka la eego waxaynu soo iibsano mesela boqolkiiba 8.8 waa tobacco waa sigaar halka waxaynu mishiin soo iibsano dhan tobacco-daynu iibsanaaba ka badan xataa sokortaynu iibsano tobacco-daynu iibsanaaba ka badan saama filaysa Soomaaliya marka la isku daro sokorta la keeno waxa ka badan tobacco-da la keeno sokorta la keenaa waa 6.44% bay leeyihiin laakiin tobacco-da la keenaa waa 8.82% waxa waddanku soo dejiyo waa ITC 2018 waxay soo saartay ayuha alxiba iyadoo dunidu loolankaa ku jiro inaynu halkaa joogno ayaa saadaasha mustaqbalku maxay tahay nimankii dunida beejka madow shidi jiray waxay leeyihiin dadku wuu badan doonaa gaajaduna waa la badan doontaa baahida cunnada ee dadku wuu gadan doonaana boqolkiiba 50 2030gan dhow boqolkiiba 50 baa cunnada la gadashadeedu ay badan doontaa numuwiga zaraaciga ee la socdaana bay leeyihiin ma badna cunnada bini aadamku uu soo saaro thuluth ka midana muhadar bay noqon doontaa sida aynu sheegnay واحد من كل 3 سوء تغذية بك عبان دونا reer magaalnimaduna waa soo badan doontaa oo 2050 waxay leeyihiin dunida dadka ku nool boqolkiiba 70 reer magaal bay soo noqon doonaan that means beerihii iyo baadiyihii iyo xoolo dhaqashadii baa laga soo guuri doonaa magaalada la iman doona kuwanina waa suu nadiir dambe intay hadda joogto markaa way ka sii faal xumaanaysaa bay iyagu sawirayaan